بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين بركة هراء مركز كالمدينة معمل كيسة إيه معلمين تيسة إيه مرتي شرفتا علماء الدين كانوا وين أي كم بديهين إيه هوانك إيه أرضيدا إيه دليردا إيه صحافة فريندين قاضي إيه هل كان يدنو قبشوكا ينوغوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بن الله الأول أمهاتنا قينا إلهي نعبوري إسلام نقدقي إن أرساقيا إن دومي سينا هاي إلهي سينو أمهاتنا قينا مركا كوادا إنو سورة قلية حفلة إن نسينا بضا يسوقون معنا إنو قبصونت برلبات كوحنون أمهاتنا قيا ماملكا إيا معلمين تا سوء أقاسمي حفلة مركز كالمدينة runtii hadallo badan baa halkan laga yidhi culimadu way inooga orantay fadliga ay u leeyahay barashada qur-aanul kariim rag badan oo kale oo ka horreeyay oo iyaguna halkan ka hadlayna waa ay jireen waa iska kooban yahay hadalku saddex kalmadood oo kooban un baan odhan doonaa waqtiguna iska kooban yahay marka hore waxaan iska rabdhigayaa waqtigii hore sidii xaaladda aqoonteena diineed heerkii ay taagnayd iyo maanta halka ay taagantahay waqti imika aan fogeynba oo waqtigii 1990kii meelaha 1990kii wadanka la soo galay ayaa intan oo xufaadihii ama madaarista intan la eg ama aqoonta diineed heerkan maanta aynu ka gaadhay ma ay jirin galabba salaad maghrib baanu tukanay dabadeedna sheekii baa maqnaay oo sheekh yar oo kale oo kusimaa baanu tujinayay oo markaa isagu aan standardka sheekha hore gaadhsiisnayn markii suuradii koowaad ee faatixada markuu suuradii faatixada dhambeeyay wuxuu ku xigsiiyay qul yaa ayyuhal kaafiruun suuraduna waa tan isku noqnoqota ee la a'budu ma ta'budu wala antum aabiduna ma a'budu wala ana aabidun ma abadu sheekhi lakum diinukum waliya diintii uu soo qaban bawaay dabeetana inteeda ku daba tukanaysa labaanu isugu jiraayo dad aan fahamsanayba in sheekha la toosin karo iyo in isaga la mid ah aan saxaynba inta ay dadku isugu jiraa mar dambe ayuu iska rukuucay salaadii sidii baan ku dhamaysanay sheekhi baa yimid waxa lagu yiri sheekhi meesha aad kaga tagtay mawlaca aad kaga tagtay qul yaa ayyuhal kaafiruun bu dhaafi waay deetana wuxuu war ku yaqaanaa way iskaga baydhaanay adigu maxaad ka doontay buu yani waxaan uga socdaa heerka aqoonta diineed heerkii ay gaadhsiisnayd iyo maanta halkay gaadhsiisantahay maantana intaasoo xufaada falilaahi alxamdi oo ama madaariistan ha noqdaan ama kuwa kale ha noqdaan gobolada dalka oo dhan iyo magaalooyinka oo dhan wax lagu xamdi noqo oo ilaahay laga baryo inuu inoo siyaadiyo uu ina garansiiyo nimcadaasi sida inoogu siyaadi lahayd inaguna adoomadiisii baynu nahay ayaa walaalayaal loo baahan yahay kelmad waxaan odhan doonaa waalidiinta waxaan leeyahay weliba haweenka u badanee maanta halkan joogta waayo waa ka badantihiin ragga maanta halkan jooga waxaan leeyahay aakhiro iyo adduunba ilmihiinu waxa uu idinku anfacayaa ee uu qiimo ku yeelanayaa marka uu barto kalaamka ilaahay taasina waxay u baahan tahay dadaal fara badan iyo juhdi inaad idinku gelisaan marka ilmihii uu qur-aanka barto xaqii waalidka uu ku lahaa iyo kii ehelku uu ku lahaa iyo kii islaamku uu ku lahaa iyo kii aadamaha kale uu ku lahaaba uu baranayaa waxaan u noqonayaa ilmo ku anfaca marka waalidiinta waxaan leeyahay waa inaad ku dadaashaan habeen iyo dharaarba sidii ilmahaagu uu u noqon lahaa ilmo ku barbaara kalaamka ilaahay iyo sunnaha nebiga taasi waalidiintaan odhanaya talabaad waxaan leeyahay ardayda waqtiga lagu jiro technology-gu heerka uu marayo waynu ognahay haddii maanta macallin iyo madrasadba aanad iman moobilkaagii baa tilaawatul qur'aanil kariim iyo tafsiirkii iyo axaadiistii nebigaba aad ku qaadan kartaa sariirtaada adiga oo jiifa ayaad halkaasi wax ka baran kartaa jaamacaadka ku yaala maanta khaliij al-arab ama adduunyada kale ama Asia ama North America ama adduunyada oo dhan iyo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waxaan wasaaril iclaamka marka sidii loogu talagalay looga faa'iideysto qalabkan warbaahinta ee wanaagsaneyd wax badan baad faa'iideysan kartaa culimadii baa meel walba joogto masaajid walba tafsiirkii baa laga akhriyay axaadiistii nabiga marka dhalinyarada waxaan leeyahay war hal la faa'iideysto oo waqtigu yaanu ha iska dayicina cilmiguna weyni iyo yaraan ma kala laha maalintii haddii aad hal aayad faa'iideysato wax ku soo kordhay weey inta aad meel ka sheekayn lahayd ugu dambaysa waxaan odhan doonaa qolooyinka ama madax dhaqameed leh ama bulshada qaybaheeda kala gedisan leh ee aqoonta diinta lagu dhaamo waxaan leeyahay war maanta haddii qof uu ku yimaado oo uu ku yiraahdo waan xanuunsanayaa
مثلا dhabarka ay xanuunaya hadii uu ku yiraahdo jawaabta u horeysa aad oranaysaa waxa weeye dhakhtar u tag waliba ku specialist aad u tilmaamaysaa waxa leedahay haday maqaarka tahay kii maqaarka u tag haday lafaha tahay kii lafaha u tag hadii ay madaxa tahay kii madaxa u tag baad leedahay hadii masaa'il diinta ku saabsan lagu weydiiyana waxa laga yaabaa inaad ku cabirto waxa ila tahay waxa leeyahay warta aynu ka korro waxa ila tahay intaan ka gudubno ilaa aakhir su'aal baa inagu iman doontaa maxaa ilaahay ka yiri arintaasi inala soo gudboonaatay nabi maxamed maxaa ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam sida aynu dhigno culimada u ehelka ah aan weydiino saan tan duuyiga aynu ugu tilmaamayno dhaqaatiirtii taasina intaasaan oran lahaa mar labaad iyo mar saddexaad waqtigu waa ciidi oo salaadii duhurna wayna haysaa haween badan oo guriga ku laaban lahaana halkan way fadhiyaan waxaan u ducaynayaa maxamed aw daahir oo nin muxsin oo samafala iyo caa'iladiisa oo runtii madrasadan gacanta ku haya ayaa leeyahay ilaahay awlaadaha u barakeeyo arsaaqda allah u barakeeyo adduunyada oo quraata alla ma garansiina aakhirana ilaahay waa garansiiyay ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu diro amalka wanaagsan ee gacanta ku hayo ilaahay ha ku anfaco leeh waxa kale oo ducaynayaa culimadeena qaaliga ay habeen iyo maalinba u taagan inay halkii ambiyadii iyo ay maanta inoogu jiray risaaladii inoo daadihinaya ummadda jahliga ka saarayaan iyagana waxaan ku leeyahay wajzaakumullahu alkhayra inagana waxaan leeyahay ilaahay hayna garansiiyo nicmadaas sida inoogu daa'im lahayd nabadana walaalayaal laga shaqeeyo meel aan nabadi jirin nolol ma jirto quruxda iyo wanaaga iyo xurriyada iyo qiimahaasi waxa la nabadda wax waliba ka unkamaan camalada ilaahayna wixii ilaahay nagu waajib yeelana aynu isfarno qof walba qof wixii aad ku dhaantay inaad farto ayay nala gudboon mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahad celinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.